السلام عليكم سودو saaxiibayaal waxaynu maanta wadaagi doonaa 5 qorshe oo ay lagama maarmaan tahay 2020 inaad ka dhabayso inagoo diiradda saari doona horumarinta shakhsiyadeed. qodobka koowaad inaad Ilaahay xiriirkiisa xoojiso sida salaadahaaga, alla ka cabsigaaga, soonka, quraan akhriskaaga. taana waxa kuu horseedi kara inaad Ilaahay si fiican u barato. qodobka labaad horumarinta aqoonta iyo xirfadaha. baro xirfado casri ah sida nashqadeynta dijitaalka, isticmaalka barnaamijyada kombiyuutarka iyo cilmiga ganacsiga ee khuseeya deegaankaaga. kororso aqoonta afafka sida Ingiriisiga, Carabiga, taasoo kuu fududayn doonta xirfadaha caalamiga ama ganacsiga caalamiga. ka qayb qaada koorsooyinka ku saabsan farsamada gacanta iyo hal-abuurka. qodobka saddexaad maalgelinta iyo maaliyadda. ka bilow lacag haysi toddobaadle ama bil walba si aad ugu diyaargarowdo maalgashiyo. haddii awoodid maalgasho mashruucyo yaryar sida ganacsi yar oo deegaankaaga, tusaale ahaan ka ganacsiga khudaarta inaad beerato kadibna aad dib u sii iibiso. qodobka afraad kor u qaadista caafimaadkaaga iyo jidhiska. jadwal samee aad ku fulinayso jimicsi maalinlaha sida socodka subaxdii ama jimicsi fudud oo guriga ah. u beddel cuntadaada mid caafimaad leh adigoo diiradda saaraya cuntooyinka dabiiciga ee deegaankaaga laga heli karo sida khudaarta, midhaha iyo cunto wadanida. hubi inaad mar walba hesho daryeel caafimaad oo joogto ah. qodobka shanaad horumarinta xidhiidhka bulshada. ka qayb qaada mashaariicda bulshada ee deegaankaaga si aad gacan uga geysatid horumarinta nolosha dadka iyo dalkaba. xooji xidhiidhka qoyskaaga, asxaabtaada iyo bulshadaada guud ahaanba. qodobka lixaad waa kan ugu dambeeya himiladaada fog iyo riyadaada mustaqbalka. qorshayso inaad dhista wax kuu gaara ama ganacsi aad adigu iska leedahay ood horumar ka samaysid mustaqbalka dhow iyo kan fogba. haddii ay suurtagal tahay bilow qorshe safar oo waxbarasho ama ganacsi oo aad ku aadaysid waddamada kale, gaar ahaan waddamada ku yaala gobolka iyo kuwa ka baxsanba. samee yoolalkaaga shakhsiyadeed ee 2020, tusaale ahaan inaad si buuxda uga shaqayso mashruuc gaar ah oo guul ku dhammaada. ku guulaysiga qorshahan wuxuu u baahan yahay dhabar adayg, adkaysi iyo inaad si joogta u eegtid mar walba. inta ayuu ka egay muuqaalkeena maanta. haddii ay tahay markii kugu horeysay ee channelka soo booqato, subscribe dheh, muuqaalkana like saar, siina sheer gale. Assalaamu calaykum.